وحنهاي وديك تسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وديك تسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أرضي فصل كافراد إن شاء الله وحالك إنه قصص دونا عشر ديني وحنقل دونا عتبك أفراد وكهذا يوم مهماهيو أما عتبك أفراد وكسابسن مهماهيو دا وحنقل دونا إن شاء الله أرضي عتبكينا عشر كيسو كوباد وكهذا يا أقوانتا waxaad ka heli doontaa insha Allah bogga ama page-ka 5 insha Allah halkaas aad kala socon doontaa intaana cashirka guudgelin ardayda insha Allah muhiimadda ugu wanaagsan waxa weeye inuu ardaygu cashirkii marka uu dhageysto uu qoro waayo haddii aanad qorin cashirku wax muhiimada macnaa ma yeelanayo intaas waa iga hordhac marka waxaan toos u geli doonaa mahmaahiyadii ku saabsanaa aqoonta ayaan toos u geli doonaa way mahmaaho haddii lagu dhahdo ardayga waa maxay mahmaah waa inaad ka jawaabi kartaa ama aad ka warcelin kartaa way mahmaahdu waa hadal kooban oo gudbinaya macno ballaaran way mahmaahdu waxa ay ka mid tahay hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee la kala dhaxlo mahmaahdu waxa ay ku baxdaa dhacdo waxaana bixiya hal qof oo kaliya hase yeeshee marka dambe si wada jir ah ayaa cid walba u adeegsataa sidaas darteed ayaa loo yiraahdaa Soomaalidu waxa ay ku mahmaahda way arday hadii la wadaado waa maxay mahmaah waxa oranaysaa waa hadal kooban oo gudbinaya macna ballaaran way mahmaahdu maxay ka mid tahay hadii la wadaado waxay ka mid tahay hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu kala dhaxashay soo jireenka oranaysaa sidoo kale sideeba mahmaahda loo bixiyaa ama maxay ku dhacdaa hadii la wadaado maxay ku soo baxdaana mahmaahdu waxay ku baxdaa dhacdo waxaana bixiya hal qof oo kaliyaata marka dambe laakiin si wada jira adiga iyo aniga iyo cid kale waxay wada adeegsanayaan si wada adeegsanayaan oo tusaale ahaan oo kale hubsiima hal baa la siistaayo kale qof baa arrin baa la inooga sheekeeyay dadna wuxuu leeyahay war hebel arrinka ma hubta hubsiima hal baa la siistaa macna waa la iska hubsadaa bilaa waxa aad sheegayso saas darteed wata Soomaalidu taahada waxay ku mahmaahdaa la yiraahdo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa baa la yiraahdaa waxaan geli doonaa marka mahmaahayada ku saabsanaa aqoonta way aqoonta hadii inteena mahmaahda gali aqoontu waa maxay aqoontu waxay leedahay mahmaahyo badan oo la adeegsado marka qofka lagu dhiiri gelinayo qiimaha iyo qaayaha ay waxbarashadu leedahay waxbarashadu waa hagaha bini'aadanka qofka bini'aadanka oo hadaan qofka aqoon lahayn de wuxuu ku jirayaa meel madow oo jahliya sida tusaale ahaan qof qol madow ku jiro oo kale ayaaba qofkaan aqoonta lahayn inta badan ayuu haanaya qof caqli wanaagsan laga yaabaa inuu isagu wax xaga wanaagsan uu ka wanaagsanaado kii bila caqliga ahaa laakiin ka aqoontani mar walba waa qofka jooga meesha ilayska ee quruxda badan leh qofka qolka dhalaalaya jooga tusaale ahaan kale way mahmaahda koowaad aqoon la'aan waa iftiin la'aan way haddii aan qofka aqoon lahayn macnaa waa qof jahli iyo meel madow ku sugan bayna ayay leeyahay mahmaahdan waxa ay noo tilmaamaysaa inay aqoontu tahay iftiin iyo ilays lagaga beedho wixii dhibaato ah ee ka soo horbaxa ama se aad wajahaysid aqoonta waxaad kaga beedhaa waxyaabaha dhibaatada ee ka hor imanaya ku soo wajahaya intaad nooshahay way mahmaahda labaad aqoon maalin bay daada iyadoo tii horun bay la macno tahay dhibaatooyinka ka hor yimaada ayabaad aqoonta kaga badbaadaa ilaahay baa wax badbaadiyay laakiin si hadana taxadir ayay keentaa aqoontu mahmaahdan waxa ay noo tilmaamaysaa in aqoontu faa'iidadeeda iyo waxtarka ay noo leedahay laga dheefo maalin loo baahan yahay taas oo anfacdo qofka barta iyo ka baranayaba ardayga baranaya iyo macalinka ama baraha baraya labadaba mahmaahdani ama mahmaahdu way anfacdaa ama ta aqoon ka hadlayso ama tu wax qabad ka hadlayso mahmaahda doonta hata mahmaah ka saara way anfacdaa waxbarashaduna bartaha iyo barahaba way anfacdaa
ha u qaadano ardayga inuu macallinku markuu wax ku dhigayo inuu isaguna waxba faa'iideyn, laakiin sida saad adigu wax u faa'iideyso ayuu macallinku ardayda uga faa'iidaya. Tusaale ahaan su'aalaha ay weydiinayaan baa ka mid ah, casharka uu akhrinaya ka mid ah, waxyaabahaas oo dhan ba waa faa'iido labada dhinacba, bartaha iyo barahaba. Intaa hore waxaa noogu soo dhammaaday mahmaahyadii ku salaysnaa aqoonta ama aqoonta waxa nooga tilmaamayey. Halkana waxaan ugu geli doonaa warcelintii ama weydiimihii layna weydiin kasoo warcelin doonaa insha Allah. Way ka warceli weydiimahan kuna qor dhiganahaaga gacanta. Mahmaahyadan qaar waxay ku jiraan casharka, qaarna kuma jiraan. Laakiinse san uguma qorna buuggaada kuma yaalaan. Intaad fiidiyowga joojiso halanka qor insha Allah. Weydiinta koowaad waa maxay mahmaahdu? Weydiinta labaad maxay mahmaahdu ku baxdaa? Weydiinta saddexaad imse qof baa bixiya mahmaahda? Weydiinta afraad sidee baa mahmaahda la iskugu gudbiyaa? Weydiinta afraad qor 3 mahmaahood oo aqoontu leedahay oon ku jirin labadii aan hore soo qaadanay. Labadii hore aan hore soo qaadanay, 2 aan hayn 3 aan hayn ayaa laga rabaa ardayga insha Allah inaad qorto. Inahaas waxay noogu eeg casharkeennii iyo weydiimihiisii. Ardayga waxa ugu muhiimsan waxa weeye markaad dhageysto casharka inaad qorto, waayo haddaanad qorin wax macnaa ballaaran ma yeelanayo, laakiinse muhiimadiisu waa qoritaanka. Inahaas ayaan kusoo afmeerayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.